wasaaradda caafimaadka ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay xaqiijisay inay heleen qofkii ugu horreeyay ee qaba caabuqa halista ah ee COVID-19 ama coronavirus kadib baaritaan lagu sameeyey. cudurkan dilaaga ah ee ka mid ah cudurrada ugu halista badan dunida laguna kala qaado sida fudud oo ka soo bilowday dalka Shiinaha ayaa waxa uu maalinba maalinta ka dambaysa ku sii fidaya dalal hor leh. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya Mutahi Kagwe ayaa isaguna maanta waxa uu shaaciyay in qof qaba xanuunka COVID-19 laga helay dalkiisa. haweeneyda cudurka lagu arkay ayaa la sheegay inay ka timid dalka Mareykanka soo martay magaalada London. wasiirka ayaa sheegay in haweeneyda ay hadda xaaladeeda caafimaad ay soo roonaanayso laguna siin hayn doono cisbitaal ilaa inta ay ka caafimaadayso. Kenya waxay sheegtay in dabagal ay ku samayn doonto dhammaan dadkii la kulmay haweeneydaasi tan iyo markii ay soo laabatay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa lagu soo warramayaa inuu isaguna ka cararay caasimadda dalkaas isagoo tagay meel dhanka xeebta ah si uu uga baxsado cudurka coronavirus sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. ilo xogogaal oo u warramay warbaahinta South Korea ayaa sheegay in hogaamiyuhu uu ka cararay caasimadda Pyongyang oo uu tagay Wonsan oo ku taalla xeebta bari ee dalkaas isagoo ka baxsaday cabsida sii kordhaysa ee cudurka COVID-19. ilo dhinaca sirdoonka falanqeeya ayaa soo jeediyey in Kim Jong-un uu muddaba ka maqnaa magaalada Pyongyang sida lagu qoray wargeyska Chosun oo soo xiganaya ila gudaha dalkaas xogtan ka soo siiyay taas oo loo arko mid xiriir la leh dhinaca cudurka COVID-19. warkan ayaa imanaya xilli la sheegayo in ilaa iyo 180 askari oo dalkaasi waqooyiga Kuuriya ay u dhinteen cudurka COVID-19 iyadoo aan wax wacaal ah ama war aan laga hayn dhanka shacabka iyadoo dalkaasi wax kasta ay sir yihiin oo aan laga warhayn una yahay mid go'doonsan. dhinaca kalena muuqaalo dhinaca satellite-ka oo laga qaaday dalka Iiraan ayaa muujinaya qubuuro wadareed aad u tiro badan oo si dhaqso ah loogu qoday dadka u leeyanaya cudurka coronavirus sida ay khubaradu aaminsan yihiin. sawirradan hawada sare laga qaaday ayaa muujinaya qubuuro wadareed ku yaala magaalada Shiicadu ay barakaystaan. qubuurahaas oo aad loo ballaariyay kadib markii cudurku uu halkaasi ka dillaacay bishii Febraayo ee aynu ka soo gudubnay. The Prime Minister, Justin Trudeau, is not feeling any symptoms, but he too now is in self-isolation and he's going to work from home. ra'iisul wasaaraha dalka Canada ayaa isagu karantiin iskiisa isgeliyay kadib markii xaaskiisa Sofia lagu arkay calaamadaha xumadda iyadoo ka soo laabatay dalka Ingiriiska. dhakhaatiirta ayaa kula tiriyay ra'iisul wasaaraha Canada inuu hawl maalmeedkiisa si caadi ah isaga sii wato inta uu ku jiro karantiinka gurigiisa, balse ra'iisul wasaaraha ayaa door biday inuu guriga ku nagaado ilaa iyo inta laga helayo natiijada baaritaanka xaaskiisa ee cudurka koronaha. dalka Canada ayaa lagu arkay ilaa iyo 100 ruux oo laga helay cudurkan.